Dhalinyarada iyo odayaasha isboortiga xaafadda Manabori ee degmada Boner ayaa kulan markaasi sagootin ah waxa ay u sameeyeen ciyaaryahan Liibaan oo markaasi hore ugu tirsanaa bahda isboortiga ee degmada Boner isagoona qayb ka ah isboortiga xaafadda Manabori iyo sidoo kale degmada kaasoo laf-dhabar u ahaa isboortiga xaafaddaasi. Daayarkan ayaa markaasi u ambabaxaya dalka dibadiisa kaas oo ay markaasi uu aadi doono waxbarasho, waxaana sagootintan u sameeyay qaybaha kala duwan ee isboortiga degmada Boner oo ugu horeeya Apostle iyo sidoo kale Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi iyo sidoo kale gudoomiyaha isboortiga ee xaafadda Manabori Guuleed Afey iyo mas'uuliyiin kale oo aad u fara badan ay markaasi soo dhaweyntiisa iyo sagootinta qayb weyn ay ka qaateen ciyaaryahan Liibaan oo daayar ah. Sidoo kale kulan ciyaareedka ayaa markaasi ka soo dhex muuqdeen ciyaartoyda ugu muhiimsanaa ee xaafadda Manabori kuwaasoo iskugu jira odayaasha iyo bahda dhalinyarada xaafaddaasi oo lagu dhiirigelinayo in lagu sagootiyo Liibaan oo markaasi ka mid ah dhalinyarada isboortiga xaafadda Manabori. Sidoo kale xaafadda Manabori ee degmada Boner ayaa horey waxa ay u sameeyeen kulan ciyaareed ee lagu soo dhaweynayo qaybo ka mid ah bahda isboortiga ee degmada Boner iyo sidoo kale kulan sagootin ah oo iyagana markaasi u sameeyeen ciyaartoy kala duwan oo markaasi u ambabaxayay dalka dibadiisa. Xaafadda Manabori ayaa markaasi waxay ka mid tahay xaafadaha ugu waaweyn ee degmada Boner waxaana ka soo baxa ciyaartoy markaasi wax tar u leh dalkeena Soomaaliya kuwaasoo qaybo waaweyn ay ka soo qayb qaateen inta lagu guda jiray horumarinta isboortiga dalka. Waxaa markaasi ka soo baxay ciyaartoy magac iyo miisaan ku leh kubadda cagta oo ay mataleen ilaa iyo heer degmo, heer gobol ilaa heer qaran oo ugu dambeyntii ay gaareen, waxayna u mahadcelinayaan dhammaan dhalinyarada ka soo qayb gashay sagootinta loo sameeyay Liibaan. Sidoo kale waxaa markaasi lagula dardaarmay inuu markaasi dadaal weyn uu markaasi ka gaaro mustaqbalkiisa nolosha haddii ay ahaleed horumarinta waxbarashada iyo sidoo kale ciyaaraha uu markaasi aad ugu soo dhex muuqday muddooyinkii uu markaasi dalka uu ku sugnaa, wuxuuna ka mid ahaa laf-dhabarta xaafadda Manabori iyo gaar ahaan degmada Boner ay markaasi iftiin u ahaa ciyaartoyda ka soo baxda degmadaasi.